Sumayo Nuur Cali waa gabar daayar kana mid ah gabdhaha aqoon-yahanada ee dalka wax ku bartay. Heerka aqoonteeda waa heerkii koowaad ee jaamacadda. Sumayo waxay u diyaar garowday in ganacsiga dalkeeda ay ku abuuran karto ay aaminto. Ma noqon shaqo raadis ee waxay noqotay shaqo abuur. Waxay ka bilowday magaalada Muqdisho ganacsi casriyeysan. Waxay sameeysaa hilib oodkac ah kaas oo ay ku sujilayso caag yar oo afka ka xiran. kadibna waxay dalab ahaan ugu iibgeysaa dadka soo codsada oodkaca ay sameeyso inta waxa u dheer timir iyaduna qaab casriyeysan ay u iibiso يعني qof oo wandhay ku taajiraay ma jiro ama wandhay ku noqonaay bilyaneer marka si bari marka haday shaqo la'aan igu dhacdo maadaama aqoontii islaayahay hadii soo barto dad badan oo igu horeeyay wax soo barto oo guriyaha fadhiya jiro oo dhahayaan in Soomaaliya adoo jaamiciyada see oodka ku karinaysa hadaa shaqeyn ma guriga iska jiifsatay intaas sano wax lagu soo baraayay marka intaas sano wax soo baranay oo guriga aad jiifto waxba ma ii tarin aniga maskaxdeeda kama shaqaysiinin aqligeyga kama shaqaysiinin aqoonteedina kuma faa'iidin marka yani inta guriga jiifi lahayd على الأقل meesha ugu yar wax ka bilaabi kartid fikir xirfada aad leedahay dhalinyarada tahriibaysa inay arkaan in wadankii shaqo ay taalo oo qofka yani haduu maskaxdiisa uu ka shaqaysiyo oo hal abuur u yeelan karo meel weyn inaan wax laga bilaabin oo sideeda banaan ganacsiyada guuleysta caalamka u fiirso waxay ka bilaawdeen meel hoose